مصطفى قدح مسؤول مركز سوق قضية مشروع من نمذا إلا لقو مالا كونفورت الصومالية أيام ما أنت بوري كنت في سياسيين كقيب قليل مدى شهيرتي ولقو ملقبورية رجال مقدقة كشكون سقال بقول سقاشن يكودين كستو مهمة قوب تنيكالية منان تصيصو مرحلة الصومالية حدنا وعلوه ويا مقع عشان الصومالية ولو ميرك يمان كفيو بملحسن كران ميشان وحكا سعودائيو مرحلة دبتي كموقتها حدبا محاي كدغانتي هذا الكمانتي مدن قدح uu ku sheegay in markiga laga birayn doono kuwa la macaamila ka qaybgalka madashan iyagoo sita magaca Somaliland mase yahay Mustafa Qodax kii ku canaanan lahaa mudanayaasha qadiyadan uu isaga laftigiisu marka qada tagay walow uu mar dambe mawlihiisa ka magan galay fikirkii midnimada oo uu muuse weydiistay cafis iyo musaamax warqadeed oo uu ku soo galay dalka ku soo dhawow muuqaalka Qodax marka hore si aad ila fahanto micnaha barnaamijkeenan inamada kibray ku kibray qarankan tayga aanay weligood xidhay aan aabahoodu soo halgamin aan adeerkoodu soo halgamin waxaan u sheegaynaa samaanta iyo wanaaga lagu wada jooga haddaad ku qanci weydo nolosha fiican ee haysato way dhamaanaysaa indhaha faraal la iska gelinaya dawladda joogto haddii xitaa hoosta ku geliso ayaanu kaala soo hoos baxaynaa markaasna saa wallahi ku bireynaa Mustafa Qodax waxa uu si miirbeela ula hadlay rag uu ka mid yahay Maxamed Habib iyo Maxamed kale oo ka qayb galay shirka Heritage wuxuuna sheegay in gacan wax lagaga wanaajin doono kuwa macaashka uu ka helay qarankan ee aan maalin u soo marin halaagii mandaqadan ka dhacay xilligii ay isku marnaayeen faqashta iyo muwaadiniinta Somaliland canaanta Mustafa waa sax balse malaha mid kale oo kulmiya ayaa kaga wanaagsanaa madasha hadalkeeda maadaama uu isagu soo maray xaaladda midnimo doonka halgankii kadib oo uu ka hayaamay fikirkiisa isagoo 5 ah hase ahaatee maanta mabay ahayn maalintii laga hadli kari lahaa madasha maadaama ragga goobta ka soo muuqday ay muujiyeen muhiimadda qadiyadda iyo mabda'a iyo go'aanka Somaliland inuu yahay muqaddas oo aanay marnaba wax dhaleecayna iyo wax hoos u dhiga Somaliland la soo muuqanin Mustafa waxa uu muuqdaa mid hor cararaya marxaladda hase ahaatee waa muhiim in wax la iska weydiiyo haddaba waxa isweydiintu tahay kala xigsiga Somaliland ma faa'iido mise waa kala dirka bulshada reer Somaliland haddii se la isku sheegto mujaahidnimo laguna birayn karo Hargeysa mas'uulaan haybtiisu esanam salyaraad ku lahayn maxalba mise waa burburka Somaliland kolley waa mid aan ku habboonayn mandaqadan iyo qarankan mudana Qodax ma yahay nafkiisa hadalkani maanta se waxa malahaygu yahay inuu buuni mashquul ahaa sidaa darteed lagu moosay isaga arrintan ka hadalkeeda maxaase laga baran karaa hadallada madalaha qaarkood la isla soo mutaxo ee kala miirdilaya bulshada reer Somaliland sanadii ugu dambeeyay waxa muuqatay in meerisyada afxumada iyo kala miiranta labeenta iyo mudanta bulshada kuwii ka soo muuqan jiray masraxyada sare ee dalka kuwaas oo mowqifkoodu ahaa Somaliland mid oo kamid ah caalamka inay badankoodii kala dirtay afxumo mana habboona in siyaabaha qaar loo wada hadlo waa si habboon tahay in laga wada hadlo Somaliland iyo halka ay u jihaysatay waxna la iska weydiiyo waa kuma haddaba Mustafa Qodax aynu ku noqonay Mustafa waa siyaasi iyo shakhsi reer Hargeysa waa 5 kalladan 2 horaantii 70kii ayuu ku soo biiray dunida macallin dugsi iyo maamule madarasadeed ayuu ka soo noqday waxa uu mar la soo shaqeeyay xisbiga kulmiye markii dambe se waxa uu la maray mudanihii reer Shirdoone Cabdi Xaashi oo waxa uu muuna dilay damcii Somaliland sidii doonta ahaatee mudana Qodax markan isagoo xisbiga mucaaradka kulmiye afkiisa ku hadlaya ayuu maanta madal isla soo taagay hadalkan isagoo inale mar kale haysta moraal sida ila muuqato waan ku sheegay sida kula muuqatana waxaad iigu sheegi doontaa qaybta faallada muuqaalka oo dhameystiran markana daawo inamada kibray ku kibray qarankan tayga aanay weligood xidhay aan aabahoodu soo halgamin aan adeerkoodu soo halgamin waxaan u sheegaynaa samaanta iyo wanaaga lagu wada jooga haddaad ku qanci weydo nolosha fiican ee haysato way dhamaanaysaa indhaha faraal la iska gelinaya dawladda joogto haddii xitaa hoosta ku geliso ayaanu kaala soo hoos baxaynaa markaasna saa wallahi ku bireynaa taana ku xisaabtama fariintan halkan ka diraya waxa weeye shirarka Somaliland laga soo horjeeday ee ummadan aayaheeda iyo masiirkeeda lagu baabiinayo inamada ka qayb galayo ha u qaadanina haddii xukuumad aan waxba idinkaga qabanayn haddii xitaa joogto ku dhaliilmaya Cabdiraxmaan oo wali uu cusub yahay inuu talaabo ka qaadan rajaynaya raga talaabooyinka durba Somaliland lidiga ku ah fagaarayaasha iyo dawladaha jaarkayna la colkaala tagay Cabdiraxmaan waan ka dhisugaynaa taa laakiin iyaga waxaan u sheegaya hadduu xataa Cabdiraxmaan idinku raacsan yahay billaahi tallaahi waanu iska kiin celinaynaa oo dalkan waa loo soo dagaalamay inaanaan buridu ku amaahinayn oo xataa hadday gaadho waa la isku dilayaayo kubiya caba ninka qadiyada iyada iyo jiritaanka iyaga iyo masiirka ummadda iyada ka hor yimaada ee naxiniya taabta wallahi waanu ku dilaynaa xataa meel fog gaarsiiya hadalka inamada kibray ku kibray qarankan tayga aanay weligood xidhay
ee aan aabahoodu soo halgamin ee aan adeerkoodu soo halgamin waxaan u sheegaynaa samaanta iyo wanaagga lagu wada joogaa haddaad ku qanci weydo nolosha fiican aad haysato way dhammaanaysaa indhaha faraha la iska gelinayaa dawladoo joogto hadday xitaa hoosta ku geliso ayaanu kaala soo hoos baxaynaa markaastaanu saa wallahi ku biraynayna taana ku xisaabtama waxaynu ku ballansannahay inaynu mucaarad wax dhisan noqono oo aynu dalkan sidii aynu u ilaalin jirnay u ilaalino madaxweynaha cusubna waynu u ducaynaynaa horta inuu ilaahay xilka ku astiriin ugu ducaynaynaa innagoo kulmiye ah oo horseeda ayaynu u ducaynaynaa madaxweyne wixii wanaaga waanu kugula shaqaynaynaa wixii xumaanna waanu kaaga soo horjeesanaynaa inamada kibray ee ku kibray qarankan ee tayga aanay weligood xidhay ee aan aabahoodu soo halgamin ee aan adeerkoodu soo halgamin waxaan u sheegaynaa samaanta iyo wanaagga lagu wada joogaa haddaad ku qanci weydo nolosha fiican aad haysato way dhammaanaysaa indhaha faraha la iska gelinayaa dawladoo joogto hadday xitaa hoosta ku geliso ayaanu kaala soo hoos baxaynaa markaastaanu saa wallahi ku biraynayna taana ku xisaabtama fariintan halkan ka diraya waxa weeye shirarka Soomaaliland lagaga soo horjeeday ee ummadan aayaheeda iyo masiirkeeda lagu baabiinayo inamada ka qayb galayo ha u qaadanina haddii xukuumad aan waxba idinkaga qabanayna hadday xitaa joogto ku dhaliilimaya Cabdiraxmaan oo wali uu cusub yahay inuu talaabo ka qaadan rajaynaya ragga talaabooyinka durba Soomaaliland lidiga ku ah faqaarayaasha iyo dawladaha jaakayna la colkaala tagay Cabdiraxmaan waan ka dhusugaynaa taa laakiin iyaga waxaan u sheegayaa hadduu xataa Cabdiraxmaan idinku raacsan yahay billaahi tallaahi waanu iska kiin celinaynaa oo dalkan waa loo soo dagaalamay inaanaan buridu ku amaahinayn oo xataa haddii gaadho waa la isku dilayaayo ku biyacaba ninka qadiyada iyada iyo jiritaanka iyaga iyo masiirka ummadda iyada ka hor yimaada ee naxiniya taabta wallahi waanu ku dilaynaa xataa meel fog gaarsiiya hadalka inamada kibray ee ku kibray qarankan ee tayga aanay weligood xidhay ee aan aabahoodu soo halgamin ee aan adeerkoodu soo halgamin waxaan u sheegaynaa samaanta iyo wanaagga lagu wada joogaa haddaad ku qanci weydo nolosha fiican aad haysato way dhammaanaysaa indhaha faraha la iska gelinayaa dawladoo joogto hadday xitaa hoosta ku geliso ayaanu kaala soo hoos baxaynaa markaastaanu saa wallahi ku biraynayna taana ku xisaabtama waxaynu ku ballansannahay inaynu mucaarad wax dhisan noqono oo aynu dalkan sidii aynu u ilaalin jirnay u ilaalino madaxweynaha cusubna waynu u ducaynaynaa horta inuu ilaahay xilka ku astiriin ugu ducaynaynaa innagoo kulmiye ah oo horseeda ayaynu u ducaynaynaa madaxweyne wixii wanaaga waanu kugula shaqaynaynaa wixii xumaanna waanu kaaga soo horjeesanaynaa maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha waxiine waa madal xoroo furan la jaanqaad Durriya Philips